hay dhiibin adeer qorayga hay dhiibin waa aniga kan dhimanaya waa aniga kan dhiig baxaya adna dhaawac yeelkeede xataa dhidid ma ka horo waa adiga kan dheefsanaya waa adiga kan dhuranaya ana dharagtu yeelkeede xataa dhuntay ma qoys السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين فتحينا اوفيشال مر لبعض اسكو سو نقد هبون فضلا هذا يوتيوب channel كي كعسبتها سبسكرايب كيسار ايك لايك غري كومنت كسو بي فيديو غني اي شير غري هدا تبرتاده tahay dhamaantan waan salaamaya salaanka bacdu waxay idin rajeynayaan in caafimaad qabtiin sidaan aniga caafimaad qabo hortiin aan u imid mar labaad iyo mar saddexaad ba dhamaantan ilaa caafimaadka noo siyaadiyo soonkana naga aqbalo inta markii laga yimaado waxaan rabaa inaan mataqaanaa aan ka hadlo ama aan mataqaana ka soo jawaabo hees adeer qoriga ha ii dhiibin oo hadeertan dabka laga soo qaaday waxaad u malaysaa in dhinacyo badan laga rogrogay heesta la qabiileeyay qaar la qaraneeyay qaar la waxba lagu sameeyay horta heestan waa hees daabanayso Soomaalida waan hees taabanaysa dhibka haysta dadka naga kan dhimanay waa anaga kan dhaawacmay waa anaga kan naga habeelay waa anaga exactly waa waxa dhan waa inaga inta markii laga yimaado waxaad moodaa heesta sawirkeeda inuu ka soo dhax muuqday Xuseen Shire dhaliisha ugu badan ay tahay in loo jeedinayo Xuseen Shire lana haysto ilma ciyaar jecel oo leeyahay maxaa ku dhacay inta aan ka hubo ilma ciyaar jecel ninka isku hayay waa Cabdi Nikal Dho Jooqle Jooqlena uu xanuunsan yahay in muddo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha siiyo markii laga reebo hadii la qabsan lahaa ilma ciyaar jecel nina waa ninka xildhibaanka ah ee xamar fadhiya nina waa ninkan xanuunsan Xuseen de waa fanaan Soomaaliyeed meesha roob uu ka soo gali karaa marka in wixii la qabiileeyo ama maartay la qarameeyo ama maartay wajiyo kala duwan loo yeelo wax qurux badan ma ahan run ahaantii marka ay timaado oo la dhaho maxaad meel hiblaayo uga hadli weeday laba waji ayay kala leedahay markii niman mas'uuliyiin oo Soomaali ah oo xilal wadanka ka soo qabtay iyo qaar hadda ka raba inay ka qabtaan iyo qaar hadda markii qoriyo isku wataan iyo markii lala dagaalay cadow arinta Soomaaliya marka hore wada haysatay ee qof kasteeto wala ay Soomaaliya agoontaysay ama walaal aan dhigtay ama mataqaana rajanimo dhigtay waxay ahayd arin Soomaaliya oo dhan hal meel ay ka wada taagneed oo aan la kala jeclayn laakiin hadda markay timaado waxaad malaysaa ma aragtay inaysan qurux badnayn wax Soomaaliya ka socdo run ahaantii markaan anaga dhalinyarada dareenka naga aan ka hadalno wax qurux badan meeshaas kama jiraan ina anaga dhaxdeena isku xaganoona ma fiicno midda kale soo cusboonaatay ayaa waxay tahay videoga dislike star fadlan intaad videoga dislike star leed aniga subscribe ii sarana walaashay okay inta aad waqti ku bixin lahayd qabyaalad ama ma aragtay waxaan qadiyadka ahayn aniga kaaga baahan aniga kuwa ila mid ah kaaga baahan oo garabkiina u baahan oo walaalnimadiina u baahan okay Soomaali waxa uu rajeynayaa dhamaantood inay hal garab wada noqdaan dislike tana waxaan leeyahay horumar baad u moodeen laakiin hankiinu ha dhaafo wax inta dhaafsiisan social media waxaan u malaysaa markaad isticmaalkiisa aad ku soo badateen inuu idin iimaanayo dib u dhacaadi aad u weyn dib u dhacaasna ay noqonayso isticmaalka waxa la isticmaalayo inaan dhamaanteen aan aad u fahansanayn macal aniga aan isku soo daro wax kasteetana fahanka ayaa koow ka ah aniga marka waxaan kaga falcelinayaa aan idin wadaa aniga ahaan ka fatxiina ahaan waxa iskala YouTube channelka heesta la soo galiyay waxa iskala wiil abwaan aad iyo aad u daayar una baahan in la dhiirigeliyo ahna qof Soomaali ah oo damirkiisu wali nool yahay ahna aan ahayn igu qabiil aan ahayn kugu qabiil ee matalaya magaca Soomaaliyeed markii laga imaado Xuseen Shire waxa aad u haysatid fadlan waxaad fiirsaa wiilka da'da yar ee Soomaalida ah ee abwaanka ah ee maskaxdiisa ay keentay adeer qoriga ha ii dhiibin run ahaantii aniga ka ahaantayda maantayto gurigeena meeqa telefoon baa taala gurigeena meeqa telefoon baa taala imise weeye waxaan u malaynayaa 7 telefoon weeye hortiinan subscribe iyo like ba ku saarayaa heestan maxaan indhirin hortiin ayaan subscribe iyo like ba ku saarayaa kana share gareyn doona inta markii laga yimaado waxaan rabaa kaamirada hoos in kugu aadiyo fadlan ha isku dayin inaad damiirkaaga naga gadid ama ha isku dayin inaad rabtid waxa aad rabtid inaad sameeyno anaga waan ka tagnay xilliga qabiilka okay waxaan maraynaa ina awlaadnada u raadino mustaqbal ifaayo oo fiican oo ka qurux badan midka anaga aan ku soo kornay ka qurux badan midka anaga aan ku soo weynaanay ee ahaa qabiil hebel iyo isxagasho iyo laba beelood oo isku soo horjeedo okay
markii intaas laga imaado waxaan rabaa inaan heestan aan idinkugu qabto fiidiyowga horta waan wada saaranayaa sax markaan wada saarto kaamirada inaan la soo baxo qasab weeyaan ilaan ani qof kale ii haya ma lahan aniga lee haystaa hortiina ayaan intaas oo subscribe ah ku saarayaa wax yar iyo dulqaata doonaya intaas oo telefoon inaan ka saaro idinkoo u wada jeedin waxa weeyaan intaas aan rabaa inaan ka wada saaro waxaan leeyahay like waxaan leeyahay subscribe waxaan leeyahay like waxaan leeyahay subscribe waxaan leeyahay like waxaan leeyahay subscribe kan mar hore aan ka saaray okay waa kaasa like tan saye okay kana ii soo haray subscribe no soo noqo heesto iga dhamaatay okay keep going walaalkayga horumar baan ku rajeynayaa aad iyo aad u qurux badan kan baa ii dhiman okay meeqa telefoon baan ka saaray marka waxaa weeyaan 1 2 3 4 5 6 okay 6 telefoon baan ka saaray kayga aan gacanta ku hayaa dhiman aan wax ku duubayo intaasoo telefoon baan ka daawaday aan subscribe kaaga saaray aan like kaaga saaray okay wax uu ku sheegay ma jirto qof qabiilka aaminsan waxaanu aaminsanahay Soomaalinimada inay waarto ilaan waxaan u malaynayaa fiidiyowga waan jeediyay because qof kale kaamirada hay malahan waxaan ka saaray 1 waxaan ka saaray 2 waxaan ka saaray 3 4 5 iyo 6 oo dhulka igaga dhacay waxaan leeyahay okay 6 telefoon ayaan ka saaray subscribe oo aan ka saaray like waxaan leeyahay Soomaalida ha aaminta inay ayaga ay isgarab qabtaan ay isku xistaraan laakiin ma ahan inay ayaga wax iska jaraan okay ani maanta waxa aaminsanahay in adiga wax ii qaban kartid laakiin adiga haddaad igu taagsatid cid wax ii qabanaysa ma lahan waxaan leeyahay dhamaantiin hore u socda heestan waxaan leeyahay ha noqoto heesta qarniga waxaan leeyahay wadaniyadu ha sareyso Soomaalinimadu ha sareyso qabiilku ha haro ilaahay oo rab raxmaan oo 10 dan baa lagu jiraa waa ramadaan 10 dan baa lagu jiraa caaw 26 waaye soo rabbiyo Soomaali qabiilka hoos u daadijiyay ma aragtay dhalashadeena iyo waxa isku ahayn iyo gayaankii wax kastaba kala gooyay rabbi subhanahu wa ta'ala ha naga reebo dhamaantiin waxa idin leeyahay fiidiyowga subscribe hala saaro haddaad aragtid oo soo maro adoo jidka iska marayo like saar share garay ya ahbaabi soo dhawaada qalbiga in ka jeclahay Soomaalinimada in ku weynaato qabiilka ma aragtay qadiyada iyo qabiilkaaga meelaha qaar ku haboon ayaa jirto ma ahan inaad la soo shirtagtid qofka qabiilka dhalna ma jirto qof kor saaran ma jirto laakiin waxa idin leeyahay wax kasta waxaad ka hormarisaa dantaada dhan iyo waxaaga dhan waxa ka hormarisaa Soomaalinimada hadii aad aamintid midabkan maariinka inaan ka mideysanahay ee aan ka wada dhalanay luuqadan ee aad ogtahay inaan ku wada dhalanay diinta fadlan qabiilka iska dhaaf saddexda ay ogolow Soomaalinimada islaamnimada luuqada iyo midabkaas haddaan ku wada dhalanay YouTube-keygana subscribe saar qabiilkana gadaal naga mari Soomaali waxay maraysaa meel hadda la yiraahdo tagtay tilaabsatay ma ahan inaan ku soo noqono qabiil iyo qabyaalad inta qabtan waxaan leenahay Ilaahay needooda burcad ha isku mariyo inta waxaan leeyahay qabiil isku dishayna Ilaahay ha u dambi dhaafo inta hadda ku talinaysa inay qabiil nagu noqdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda ha noo soo jeeday ha noo soo dumo dhamaantii waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxyaalaha naga dhaaf dislike-ta ka hormar wax kala keensada mashruuc kale hal la keeno dislike-ta naga dhaafa adduunyanaha la tartanay waa idin sidii Soomaaliyeed wanigan kan dhimanaya wanigan kan dhiig baxaya adna dhaawac yeelkee xataa dhidid ma ka horo wadigan kan dhuranaya wadigan kan dheefsanaya adna dheragta yeelkee xataa dhuurta ima qoysi igadaa haydhiibin hadeer qoriga haydhiibin igadaa haydhiibin hadeer qoriga haydhiibin